militariga waliba uu sayaa gaashaanka difaacowka waliba uu sayaa gurmudka shacabkan guud ahaan geyga Soomaaliyeed ilaaliyowka dhulka sanad walba markii la deerato ilaa Abriil waliba guud ahaan gobolada dalka ka qobadaya munaasabada kuwiinaya oo aasaaska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka beegan ilaa Abriil si ciidamada hakabirasa sanad walba ciidanka xoogga dalka la soo siya marxaladooda shal dugunaa ay usaamari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed tan iyo markii la aasaasay ciidanka militariga Soomaaliyeed hataba ama la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed inta la ka aasaasay cutubkan koray ciidanka xoogga ay tababare ciidankan ka horay ee militariga Soomaaliyeed ee la aasaasay magaqaybooda koobanay ciidankaas waa koox hadaba qabiir oo waayo badan u saan roogay marxaladooda shal dugunaa ay usaamari militariga Soomaaliyeed General Xasan Isaaga Umar Xasan Baydhabo oo ay taliyaha qaybta leedanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee fadhiyay magaalada Baydhabo harunta gobolka Bay 12 Abriil ayaa la aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaana aasaasay generaalkeeni General Daawud Abdullahi Hirsi jannadii Firdaws Allah ka waraabiye ayaa maartay ragii aasaasay number 2 ka ahaa 12 Abriil waa jiritaanka taariikh nololeedka jiritaanka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jiritaankiisa waa marka taariikhdeeni waa xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta uu ku nool yahay waa taariikhdeeni waa difaacowka geyga iyo dhulka muqorreeban dhalinta walbarataysa lan hala ciidan la abooda dhan walba balla oo waana ku dhisan kabtan Abuukar Maxamed Ibraahim Dr. Nyariso madaxa laanta caafimaadka qaybta lixdanaad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo kumida dhalinyarada walbaratay ciidamada xoogga dalka Kabiiraan ya waliba uu weydiinay faa'iidada yeelatay in dhalinyarada walbarata Kabiiraan ciidamada iyo wala ku aaminsanaa ciidamada ku horantii usaan Kabiirna ana wax bartay heer jaamacadeed ah aan jaamacad ka soo qalinjibiyay oo soo dhameystay oo meelo kala ama meelo fara badan shaqooyin kala duwan aan ka heli karo fursado badan aan ka heli karo waxaan ciidanka ugu biiray si wadankayga aan horumar u gaarsiyo ka aaminsanaani qofkii ciidan noqday inuu dhimanayo laakiin waxaan arkay qofkii ciidan noqday inuu nolol helayo arkay oo ka daweeyay ummadda kale respecti xishmad sharaf iyo geesinimo intaas waa laga helaa إني كلا جنرال حسن بيدو يا ولي بقى أسوق هذا الفائدة يعني لا تدارين طوال برتي إني كبيرت إذا ماذا أما معلم يقدم بيته يو إذا ماذا ولا يكور بينها دارين طوال برتي حتى إذا ماذا يكجران يراد الصومالية وحبرتي إني إذا ماذا كبيران وحي فائدة أبتهي ذلك صوماليا أي فائدة أبتهي وأنا كبوا قاعدين يا رجعوا رجله هلي كرمه